kusoo dhawaada Somali Top 10 markaana waxaa idin haynaa 10 siyaabood oo imtixaanka loo qisho waad ku xariftami kartaa xilliga imtixaanka marka hore haddaan idin cajiwinaha nala dhaafin subscribe like share iyo comment qishka tobnaad waa nooca ugu doqonsan ee wax loo qisho waa inaad hanqalocdo ama qoraansato qof kale warqadii waxaaba la qaatay oo nooca dhaanta in aad eliyarada wax ka fiiriyo qishka sagaalaad waa inaad kabaha qaybta hoose kaga dhijiso warqada aad wax ku qishayso kula dhaji xanjo ama koolla aan goosanin warqada ka taxadar socodkaaga haddii kale waa ay kaa fuq doontaa warqadu qishka sideedaad warqada ku qora jawaabahaaga kadibna geli booska muraayadaha ee okiyaalahaaga sidan oo kale waxaa digniin ah inaadan bixin muraayadaha ilaan warqada ayaa muuqanaysa qishka toddobaad ku qora jawaabahaaga qalanbiire ama midka aad u taqaano adiga oo kula qorayo warqad cad kadibna ku masax qalin qori ama qalin rasaas midka aad u taqaano warqad madow ayaa kuu soo baxaysa marka aad tagto hoolka imtixaanka ku tirtir goome ama tirtiraha qalin qoriga jawaabahaaga ayaa kuu soo baxaya qishka lixaad jawaabaha lagaga baahan yahay ku qoro warqada leebelka ah ee ku dhagan aaga bacbaxlaha biyaha lagu cabo fiiq warqada leebelka ah qaybteeda dambe ee biyaha xigta ku qoro jawaabahaaga kadibna biyaha haaf ka dhig si aad ugu jeedo qoraalka ha samayn sidan waayo waa lagu fahmaya soo qaado jaakad kadibna mid ka mid ah gacmaha jaakada gacan kala bax oo ku qabso taleefanka gacantii marneed ee jaakada saar miiska kadibna qish oo qor waxa lagu imtixaanayo waxaa jira si kale oo wax looga qishi karo taleefanada qarsoon bixi qaybta hore ee calculator-kaaga kadibna geli mobilkaaga halkaana ka daawo qishkaaga haddii aad u baahato calculator-na mobilkaaga ayaa leh qishka afraad ku samee jirkaaga dhaawac been ah ama mid run ah haddii ay kuu sahlan tahay kadibna ku xir faashad cad sidan ayaad wax ku qoran kartaa ama qaybta hoose wax kaga qoro oo hadba dhaawaca fiiq laakiin ogsoonow dhaawacu waa halis ama infection ayuu kugu dhalin karaa haddii aad faashada hadba qaado qishka saddexaad noocan wuxuu kuu sahlayaa inaad imtixaankaaga ku baaso marnaba ha isticmaalin dhagaha noocan ah waayo waa lagu dareemayaa ama waxaad noqonaysaa doqon wax qishay isticmaal earphone adigoo hoos marinaya dharkaaga waa inaad wadataa shaar gacmo dheera ah ama fanaanad kadibna labada samiicad ee earphone-ka geli labadaada gacmood midkood si digtoon u dhageyso codka adigoo gacanta saaraya dhegta aad wax ku maqlayso qishka labaad wax ku qish injirka gacmaha lagu xirto ku qor qoraalka injirka qaybtiisa hoose waayo markaad xiritid injirka looma jeediyo qoraal isla injirka si kale ayaad wax ugu qori kartaa marka aad wax ku qoraysid injirka waa inaad kala jiidaa si wax badan aad ugu qor markuu isku ururo oo caadiga yahay lama fahmayo qoraalka wax tirtiran ayuu u ekaanayaa kala jiid kadibna qish qishka koowaad wax ku qish okiyaalaha Google Glasses okiyaalahan waxay ku xiran yihiin Google Internet waxaad ka baaran kartaa waxa aad doonayso lagama fahmayo qishkan waayo okiyaalahan waxay u yihiin kuwa caadiga ah tobankaasna waxaad ku xariftami kartaa xilliga imtixaanka fadlan haddii aan ku cajibinahay nala dhaafin subscribe like share iyo comment mahadsanidin